warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha uu geystay dagaal culus oo saaka waa berigii hore ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Dagaalka ayaa wararku waxay sheegayaan inuu si gaar ah ugu dhaxeeyo ciidamada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale maleeshiyaad daacad u ah mid ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. saaka waa berigii hore ayaa ciidamada Koonfur Galbeed waxay weerar ku ekeeyeen goob ay ku sugnaayeen ciidamadan waxaana ciidamada la weeraray ay iyana sameeyeen iska caabin waxaana halkaa ka dhacay dagaal culus oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac. wararka aan hadda helayna waxay sheegayaan in ciidamada Koonfur Galbeed ay si buuxda ula wareegeen aaga deegaanada lagu dagaalamay ha yeeshee warar kale oo soo baxayana waxay xaqiijinayaan in dagaaladu ay weli socdaan. adeega isgaarsiinta magaalada Baydhabo ayaa hawada ka maqan waxaana adkaatay in si fudud loo helo xogta ku aadan khasaaraha guud dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. qoraal kooban oo goordhow lagu daabacay bogga wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in ciidamada Koonfur Galbeed oo wada howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo ay la kulmeen koox burcad ah oo isbaara u taalay magaalada Baydhabo markii lagu amray in kooxdan ay isdhiibaan ama ay hub ka dhigaan ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay bogga wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. laakiin dhinaca kale mid ka mid ah musharaxiinta la weeraray oo hoygiisa uu ku yaala magaalada Baydhabo ayaa isna qoraal kooban oo uu ku daabacay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay waxaa saaka aroortii gurigayga oo ku yaala Baydhabo weerar gardaraac ku qaaday ciidamo iskugu jira booliis federaal ah NISA iyo ciidamada xoogga dalka ee SNA iyo ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed. dagaalkaasi wuxuu geystay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac oo dhowr qof ayaa halkaa ku dhintay ayuu yiri Maxamed Fargeeti oo ah shakhsiga la weeraray gurigiisa oo ku yaala magaalada Baydhabo. magaalada Baydhabo ayaa maalmahan waxaa ka taagnaa xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay muddo kordhinta madaxweynaha Koonfur Galbeed waxaana tiro dhowr jeer ah shakhsiyaadka ka soo horjeeda muddo kordhsiga madaxweynaha Koonfur Galbeed ay sheegeen inaysan marna aqbali doonin muddo dheereysiga madaxweynaha iyagoo ku tilmaamay inay taasi tahay sifo sharci darro ah. madaxweynaha Koonfur Galbeed oo isla dhawaan khudbad ka jeediya magaalada Baydhabo wuxuu sheegay in isagu uusan lahayn go'aanka muddo kordhinta oo gacanta hadda ugu jira buu yiri baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa dhawaan waxa uu socdaal ku tagay magaalada Baydhabo isagoo sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed laga qaban doono shir dib u heshiisiin inkastoo hoggaanka musharaxiinta Koonfur Galbeed ay arrinkaasi gaashaanka u durureen.